السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن سلامة أصحاب تيدا كحرن بيج كيك فيسبوك حبيبي وناكسنا إذن لي هاي مركز حكتو وحن ربائنا هالكان كلا هطلو ولا شيء لك حاجة وعيس لك قبر فنانة صوماليات واي أمة الصوماليات وذي يقانين لكن بريها دبوا وحن أركي قلدات بدن قالت كان مفيعنا قف كستنا وحو حق لي هاي إنه حقيسة كهطلو Soomaalidana sidooda ma jecla runta qofka ka hadlaayo ma jecla always waxay jecel yihiin dadka iyaga buunbuuniya laakiin runta inaan isku sheegno waaye gabar walaashay waaye xumaan uma qabo laakiin lakiyay waxaan ku leeyahay walaashay family reer karaamad ku dhex wareegata bariyahan dambo muusiga adiga lahayn waxyaalo adiga lahayn ayaa samaysataa aniga maxaa la yiraahdaa gabar fanaanad inaatahay waa ku qirsanahay heesaha fanaaniintaana anagoo dhan aan wada qaadnaa waana qaadi kartaa laakiin markaad qaadaysid waa ina ula imaataa adiga style-kaaga iyo maxaa la dhahaye systemka adiga aad u rabtid laakiin same music-ii aniga la ii tumay marka adi familkeygii kusii dhex wareegatidee midba maalinba midka kale aad usii aadid si adiga danahaaga gaarka aad ugu fulisatid it's not working that way gabar fanaanadaa tahay sumcadaada iyo sharaftaada waxaad ku yeelanay marka adiga waxaaga waqti aad soo gelisid laakiin music aniga la ii tumay ama qofka music tumay laftirkiisa aan ogahay waxa idinka dhaxeeyo inuusan xiriir idinka dhaxeynin maxaa la yiraahdaa musigiisa inaad isla family-kii aad ka soo qaadatid oo shaashadaha aad la imaatid ama media wax oo xun waayo ma fiicno saasna abaay macaan ma ahan ixtiraamka oo bulshada ama gaal iyo muslim ba isku ixtiraamaan ma ahan azareer karaamana dad family oo fanaanimada lagu yaqaan waay marka waa ina isku ixtiraamnaan qof walba darajada uu fanka uu kaga jiro waana ina igu nagu ixtiraamta anaka ina darajada aan fanka aan kaga jirno ma kula dagaalayo xumaanku ma qabi laakiin inaan runta ku sheego hees marka aragti ina heestid waa heesi kartaa laakiin musiga ritma kala halagaaga soo tumo musician kale ha ku soo tumo either family karaam ha ku tumeen laakiin music aniga la ii soo tumay kiigeygii ritmadeydii codkeygii toonkeygii inaad familkeyga le aad ka soo qaadato oo shaashadaha aad la imaatid wax fiican ma ahan marka I hope hadalkeyga inuu future-ka wax ka bedeli doono family-ga aad ku meermeereysanaysid waa laga fiican yahay walaashay dad walaalo oo Soomaaliyeedna waa nahay dad oo maxaa la yiraahdaa fanka oo ka wada dhaxeeyaanahay fanka waxaan ku ixtiraamaa dadka qofba kii iga weynaa ee iga horeeyay iyo kii iga dambeeyay iyo kii iga garab taagnaabo inaan ku ixtiraamo mansabka ay fanka kaga jiraan marka adigana taas inaan horto aad ogaatid aadna maxaa la yiraahdaa si fiican u fahamtid position-ka qof walba uu fanka kaga jiro style-kiisa inuu ku wadi karo ama style-kaaga ina adiga bulshada aad u soo bandhigto markaas sharaftaada iyo magacaaga si kordhaya laakiin hadii ay noqoto same copy same system and family le aan ka soo wada qaadana aan meelaha la imaana adna wax sumcad kuma yeelanaysid wax oo faa'iidana kuma lahan marka qofka wixiisana in farax looga qaada fiican xad gudubka ma fiicna marka waxaan ku leeyahay walaashay ina ifahamtina rajayna insha Allah waxaana leeyahay dhamaan fanaaniinta Soomaaliyeed is walaalsano dad walaalanahay qofka bini aadanka ahna waxa fiican walaalnimadii kugu qadariyay ina ku tixgelisid walaalnimo waan kugu tixgeliyay asa gabar Soomaaliyeed adiga muddo 2 times aan telephone isku la hadalnay waligay ma kuma live isku ma arkin at the same time adna ma ihmaynin anna ma ku xumaynin laakiin hadeertan waa talaxtagoysa tixgelintana wax weyn waay talaxtagana ma fiicna maxaa la yiraahdaa qof xiriir idin musiga waxa tumay heesta hadda kuugu dambeysay ee YouTube-ka aad soo dhigtay musiga waxa ii tumay aniga ayaa dalbaday waxa ii tumay Mustafa Ahmed Karaama eedaan u ah family faneed waay musiga family-ka ka soo heshay adiga iyo Mustafa xiriir idin kama dhaxeeyo iyo adi xiriir naga ma dhaxeeyo family-kiya ku dhex wareegata aad ka soo qaadatay YouTube la imaatay xaq waxa u leeyahay inaan kugu suud gareeyo
on complain an YouTube company an udhigo xaq waa u leh waa sameyn karaa laakiin ma rabo ilaa heerkaas inaan kula gaaro laakiin aas Soomaalinimo gabdho Soomaaliyeed oo fanaaniin ah inaan isku tixgelino marka xaq ma u leedihid qof aadan ba isku fiicneen muusigiisa oo uusan adig ku tumin waqtina aadan soo gelin in iska soo qaadatid maxaa la yiraahdaa family-kii ka soo qaadatido midiha aad la timaadidna waa laga fiican yahay walaashay waxaan ku rajeynaa insha Allah horumar iyo baraaran ku rajeynaa next time macnaha ina yaana isku soo noqonin qofka mansabkiisa iyo fankiisa ku ixtiraam si aniga adig kugu ixtiraamay oo kugu ogolaaday heesaha hooyaday ina qaadid ya kugu ana iigu ixtiraam ina oo fanka wanaag aan isku la jirno taasaytii intaasaan ka dalbanaa waxaan leeyahay dhamaan daawashayaalka beejkayga habeen wanaagsan